وحيدي كشيكين يا قصة مركان جوجي نروي والدكتور موجود مسجد بان تجي مغرب كي أن كلمة قرنا مركان صلاة دي أن تكني بعدين دل يرو أسهل كيسو باكستاني يعني سيء شيء ماشى كل شيء أو أف نرويج جاي يغان أي أيام حقول يا شيخ أنا جوهرت وحان وعندك كان دعاء في سبيل الله وبحي دعوتك الشقيوي وحير إلهي سبحانه وتعالى وحيقوم من نجتي وحن كده ذهلاب ويري نرويجيين تان الله الله أن دينتك الله الله وإسلامك ويرا بالكست ويرا لما أما صدح با يعني سوحر الجليا وإلهي سبب يقدر عينه إسلامان مركب ما أنت من بعد مدبان وضع أو حد دوني إنه أشهاده أو إسلامه وحن ربعنا أدو شهادة وقبته خير الله كسيان الدام أنت قل كان أنت كليون وحبوع كلامه يدانا كفايدي سن فهو خير لي وحكست يا خير بدن خير الله كسي جزاك الله خيرا وكابويل وويل كادير يوروب قروح ذا بدن هرتيدو سوفريشي وحي لك باكستاني قاعد شيخ وحن كلام قاعد سنة يا أبوي أنا دعوة هي كلمات كأن كلها هذلو بان ربا إن أنكوسو بندقو حتى والله هذا هرت هذا كلها هذا هدي وحي خلديهن إيسح أنا يقول إيه مقتدى هدي وحي خلديهن إيسح وهي هير سوماليا يجا ترجمة فورية دعوة يرو موجزه عجائب له توحيد كي iyo nubuwadii iyo risaaladii iyo iimaaniyaadkii iyo aakhiradii oo kooban oo isku qofalan ilaa qofka dacwo isku mashquuliya ilaahay baa waafajinaya oo ajaa'ib loo meesha ku dhuftay yarkii buu af Norway buu kula hadlayaa yarkii Soomaaliga anigu ii tarjumaya waxa uu leeyahay kadib wuxuu ku yiri ma maqashay hadalkayga kii wuxuu yiraahdaa ma fahantahay ha ma rumaysantahay waan rumaysanahay ma cid baa diinta kugu qasabtay maya سو أديك اختيارك هذا مرة تدينا وتقشها فضل يا شيخ شهادتين كأقول لك هذا ديار وي شهادتك بقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شهادتك ترجمة بالنرويجي وهذا أنا أقول لفتي وكل واقعي الحمد لله الله أكبر بالليل إنك ولا معانقي سقي وفرحي إنا كلا تجنان دم علي ومركي أن تعيني وحير الشيخ أرم بعد من فريست يركب أن أوري باكستاني قا فريست وفريسن وحرمنا بويري ويل كان هذا سو إسلامي إذا لا يرضى إنه سوق ندعيه كو وما هذا وحير لأن يسوق دم بيجي شوران إلهي ودافع سبحدي سوا فاضي لكن أنا قدام بيبان نجبوح مركان سوق هندعيه isaga marka ka dal wallahi waa arin wanaagsan baan waa sax quraanka ay ku taalaaba qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wal islam yajub ma qabla wa ba hikmad weyn marka yarkiibu wuxuu ku yiri no ducee kii wuxuu yiri duca ma qan ana ku laqinaye iga daba dhaboore raasu ka dabe allahumma ighfir lana اللهم ارحمنا اللهم ادخلنا سقي با دعينا نقول امين بلنا سقي با دعي markaas wuxuu yiri yarkiis Pakistani wuxuu yiri anigu fursad baan ka dhigtaa mid kasta oo soo islaamiyo waan ka duceystaa لانه dambi male dambi marhaduu lahayn insha Allah ducadiisa waa maqbuul jamaa uu hogaaminayo Abdul Qays saxaabi la oran jiray ayaa Madiinada al-Munawwara nabiga ugu yimaadeen kaleey salaatu wasalaam saxaabadu nabiga jeclaayeen inay hore ula kulmaan ayakii way soo degdegeen oo way soo hormareen walaakiin saxaabigaas isagu ka dib dhacay nabiga uu ka dib dhacay oo muxuu kaga dib dhacay awrtii ay wateen maaragtaan rarka ayuu ka dhigayay oo nadabrayay dharkii uu safarka ku soo galay boorka meedhanaana uu iska soo bedilay dhar qurux badanna uu soo xidho nabiga wuxuu yimid isagoo iska degan halka saaxiibadii ayagoon dharkiina iska bedelin siigadiina aan iska maydhin ayay nabiga ku soo degdegeen kaleey salaatu wasalaam markuu saxaabigii nabiga uu yimiday ayuu nabigu ku yiri inna fiika khaslatayn laba khasladood baad leedahay buu nabigu ku yiri oo ilaahay uu jecel yahay labada khasladood waa maxay الحلم والأناه با نبي يقول الدلقات إيه الدقنان با كامو قطول لما خصلدود إلهي با جعل برسولك كويولي
alcajalatu min ashayطaani wاta'ani min allah degdegu shaydaan buu ka ahaaday deganaantuna ilaahay xaggiisay ka ahaatay buu rasuulku yidhi dulqaad alxilmu walanaa baa nebigu dulqaad iyo deganaan baad leedahay waa labada khasladoodna ilaahay baa jecel buu rasuulku yidhi labadaa khasladood ilaahay baa jecel غزوة غزواتكي كمدة بو نبيغو سيف سوق هذا سيف مرقابو صحابة دي كوري ايا سيفتا ايقا قادن مرقاسي صحابة دو قعنتا تاقين انا قادن دقال كينا او سعدا والله سور فرديا مرقابو نبيغو ايا قادن وحقي ايقا نسين مرقاسي قعنتي الله وضا النقدين ابو دجانا صحابي اللي ورنجري بada aniga qaadan oo xaqayga marin xaqqa kalena nabigayna abtigiiba gacanta soo taagay Zubayr ana qaadi oo gacanta xaq seefta xaqeeda marin Zubayr nabigu intuu eegay buu seefta u dhiibay Abu Dujana nabigu seefta u dhiibay Abu Dujana Samak bin Kharash radiyallahu anhu dan saxaabiga Zubayr bin Awam والله علوش أور كان وحكو قبتي بودي مالك وحان السري أظن النبي محمد إن أبتقي أو أي كل صفية بنت عبد المطلب ما هو النبي قال سافت أديك كاجل حيي وأبو دجانة وقول لي بي حتى لو حان السري والنبي والرسول إلهي وياه كل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاضي حكمة ما كذب بيسه بل أبو دجانة وحوس ما في رسد أبو دجانة رضي الله عنه سيفتي بقاتي مركز سيفت قال كان لقى ساري حقيقة ومحي وأنا قال لها مشركين تقورت أتكجج جويسد أنا سيفت قال كذا يكسر نقم باللجوي بركاس الله صباح مرة يرى عصو هالكابو كحدي وكقرن تحي نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين عربتنا دقن وحيل هيد مرة عصنك مدح كحدة ودمشق مسو جسنا يبيك دقن تادي مسمو يعني مركز الصحابة مدح قبسدين أبو دجانة مات وحول الله صباح على مد موتك markuu dagaalka xagiisa u sii dhaqaaqay dagaalkuna ma aha rasaas waxa la isku mirayo ugu waa seef waa gacanta la isku tagaya waxa la yiri socodka dadka kibirka badan leh xaragooda ay u socdaan sidooda ayuu u dhaqaaqay baa la yiri isagoo sii qalqaloocinaya markaasuu saxaabadu way eegeen ya rasuulallah rasuulka u tagay ya rasuulallah he abu dujana he sida mutakabbiriintu u socdaa iimaan arkayn markaa uu nabigu sidaa u eegay wuxuu waa runtiin sida Abu Dujana uu u socdo socodka noocaas ilaahay ma jecla buu nabigu ka yiri laakiin meelahana ilaahay ku jecel yahay rasuulku yiri wuxuu ku xaragoonaya xaragada meesheedii buu dhigay inaga maanta dhalinyaradeennu xaragada halkay dhigeen socodka Abu Dujana uu dhaqaaqay buu nabigu ilaahay uu necab yahay laakiin meelahana ilaahay ku jecel yahay buu rasuulku yiri waayo daacad ilaahay buu si xaragoonaya inuu diinta difaaciga u dhinto oo ballankii nabiga uu la galay inuu buuxiyo ayuu si xaragoonaya waxa qisada u soo qaatay waxa weeyaan shay walba saxaabadu halkii loogu tala galay bay ku bixiyeen inaga maanta dhaqaalaheeni halkuu ku baxaya intiisa u badan dhalinyarnimadeeni halkay ku baxaysaa quwadeeni halkay ku baxaysaa aqligeeni halkuu ku baxaya xoogeeni halkuu ku baxaya maanta u fiirsada walaalayaal salaaxiyaadka ilaahayna geliyay mujtamaca muslimka intooda u badan waa hal bacal lagu lisoo cid waqtigeenu ku dhamaaday